maamulka degmada Ceelafeen mas'uuliyiinta iyo macallimiinta wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee degmada Ceelafeen ee galbeedka gobolka Sanaag ayaa maanta ka warbixiyay in si rasmi ah ay u furan yihiin loona dhigto dugsiyada kala duwan ee magaalada Ceelafeen iyo habsami socodka casharada oo toos uga socda dugsiyadaas oo muddo 3 bilood ah xidhnaa taas oo ay sababtay rabshado iyo dagaalo ka dhacay muddooyinkii la soo dhaafay degmada Ceelafeen iyo qaar ka mid ah deegaanada hoos yimaada waxay kaloo ugu baaqeen mas'uuliyiinta ardayda wax ka baran jirtay dugsiyadan in ay dib ugu soo laabtaan fasaladooda maadaama ay ugu soo fool leeyihiin imtixaanaad سنويها وورين وعلقة كهاد لي معاملها دكسي وهوسة دحية دولة ياسين عبد الله يقدميها وزارة وحبرشة التعليم تسرية دقمة Ceelafeen كيسس صلاح وحنا يراهدين. وحنا قاعدين إن ما أنت بريبشن دكسي واحدنا مدة 3 بلاد ودقاتنا بدقلية وقدو حنا وصير رسمي وفرمي ونشقين يوم مدة محل يراهدا بلا دكسي قصير رسمي وشقين ساعة أركيسين حسس كي شقادي بسيف عنا يسعنين. marka inta kale ardayda ama wixii bedeshaha noqdeen ama wixii kale maxaa la yiraahdaa si ku meel gaar ah macallimiintu u siisay waraaqaha dugsiyada kale ku jira waxaan sheegaynaa inay dugsiga yimaadaan oo imtixaanka maadaama imtixaanka soo dhow yahay dugsiga si rasmi u furan yahay imtixaanka yimaadaan haddii imtixaanka la galana taa noqonayso arday sanadkaasi ka hadhay waxbarashadii ka hadhay dhibaatadii degmada ka dhacday iskuulada saameyn ku yeelatay sida maamuluhu sheegay muddo 3 bilood ay xidhnaayeen الحمد لله وحن كقولي سني أنا قاعد لطش بدل الله سمعني معمول كقبل كوسارة وحبرشة سراكيش إذا ماذا يوم ضحك كلا جمهورية الصومال لأن دقمة كسرنايد يوالدين تبع ضياشة إن ده سكول كده بلا فرع إمي كان مدب بلا أي سكول كله ودي سفي عم بيد أوسع تهاوشو أردنا إنه يسوكر لسي أنا قلنا يمكن حويا فرين باقي عيان ندرنا لما أردنا كسران قبل الصومال لأن سيدا كمل جار كأوسي تري وحبرشة وقسي وتي إن دوكسي كسر نقدان سيدا معمول الشجعنا هدي وحويا وتيرم جارو هاي امتحان كلا قاضو أرد ودوكار يا سنة كأرد نسكول كوم حساب سنة سأسترت الوالدين تيا أرد ده وحنو باق قدرنا إن أرد دي سوء عليان وحنا هنعلن يا دمان معمولات دوكسية يا معلمين تو وسيها قرلعان وشقينيا دمان دوكسية عصور الشجع على هذا مركب واحدين هذا ردي فرمان معمولات دي بعدك الشقينية يا معلمين تو دي. sidoo kale waxa iyaguna halkaas ka hadlay qaar kamid ah macallimiinta iyo ardayda wax ka barata dugsiyadaasi waan ku faraxsanahay hadii aan nahay ardayda dugsiga hoose dhexe ee Dhoolayare in iskuulkeygii umar labaad noo furmo isagoo iskuulkaasi naga xidhnaa muddo ku siman 3 bilood iskuulkii degmada Ceelafeen ee dugsiga dhexe ee Dhoolayare oo muddo sida la sheegay 3 bilood xidhnaa hadda muddo bil ah iyo dheeraadba waa furaa wala dhiganayay duruustii way socotay manhajkii cusbaan ku bilownay marka waxa loo baahan yahay ardayda inay iskuulka yimaadaan xitaa kuwa maqanayaan inay iskuulka yimaadaan gabagabadii waxa isna halkaas ka hadlay maayirka magaalada Ceelafeen Cabdiraxiin Yuusuf Axmed waxaan horta u baaqaynaa ardaydii iyo waalidiinta carruurtooda dugsiga arrimaha duruufo awgeed ee duruufana awgeed u taxay in hadda ardaydii kale iskuulka ay arkaan in iskuuladii furan yihiin carruurtana dhiganayso duruustina ay si wanaagsan u qaadanayaan waxaan kaloo ugu baaqayaa ama aan u sheegayaa wasaaradda waxbarashada tacliinta gaar ahaan xafiiska imtixaanaadku in loo tixgeliyo ardaydaas duruufuhu ka kaxayeen waxbarashada iskuulka ka xidheen in xilliga imtixaanaadka sida ardayda yaryarka iyo fanfurada ee iskuulada ka baxayaan in loo tixgeliyo xafiiska imtixaanaadka iyo wasaaradda waxbarashada ay u tixgeliyaan duruufta in loogu tixgeliyana aad baan u codsanaynaa Axmed Mursal Askar TV-ga caalamka Universal Ceelafeen